tobanka bulshooyinka qarsoon ee dunida maamula lambarka 10aad The Knight of Malta kooxdan waxay ku shaqeysaa awaamirta Kaasoliga sooma bandhigaan amarada ay bixiyaan meesha ay joogaan waa ay qariyaan waa hay'ad u madax banaan sharciyada caalamiga ah waxayna ilaalisaa xiriirka diblomaasiyadeed ee wadamo badan ka dhaxeeya xubnaha bulshadan waxay ka kala yimaadeen dunida waxayna hoos yimaadaan Vatican oo ah meesha Kaasoliga looga arrimiyo waxay xiriir la leeyihiin ganacsato bangiyo siyaasiyiin iyo sirdoonka CIA-da ururkan wuxuu bixiyaa mucaawinooyin ugu deeqayo wadamo badan oo u baahan wariyaha ku guuleystay abaalmarinta Pulitzer Prize Seymour Hersh wuxuu shaaca ka qaaday barnaamij la dhaho My Life Affair wuxuuna soo bandhigay kooxihii dilka fulin jiray ee uu aqalka cad isticmaali jiray wuxuu yiri xubno badan oo kamid ah OS iyo CIA-da waxay ka yimaadeen The Knights of Malta 9 Club de Ben waa hay'ad sirdoon taasoo haysata 27 gobol oo midowga Yurub ah Norway iyo Switzerland ayaa kamid ah sidoo kale waxaa kamid ah Israa'iil Mareykanka iyo Australia Asia iyo Canadian Seas warbaahinta kooxdan kama hadasho oo way ka aamustaa dadka intooda ugu badanna wiilgooda ma aysan maqlin kulamada shirarkooda ay kaga doodaan waa mid aad loo qariyo marna shaac lagama qaado 8 Skull and Bones kooxdan waa isbahaysiga bulshooyinka qarsoon ee Mareykanka sidoo kale waxaa loo yaqaan walaalaha dhimashada bulshadan waxaa lagu aasaasay jaamacadda Yale 1832 balse kooxda bulshadan arday ayaa weli kamid ah waxaa bulshadan kamid ahay qaar kamid ah dadweynaha ugu xooga badnay ee saameynta ku lahay taariikhda madaxweynaha 46aad ee Mareykanka xubin ayuu ka ahaan jiray kooxdan waxaa ku jiray George Bush Senior iyo George Bush Junior xubnaha hadda kooxdan kamid ka ah lama yaqaano balse waxaa la aaminsan yahay inay rag uun ka kooban yihiin dhammaantooda qof walba oo kooxdan ku biiraya waxaa la siinayaa awood siyaasadeed ee dhaqaalo siyaasadana boos ayuu ka helayaa waliba boos xoog badan 7 The Bohemian Grove waa koox aad u qarsoon waxayna xarumo ku leeyihiin California iyo Countiga Sonoma Bohemian Grove waxaa la aasaasay 1872 kulanka lagu aasaasay waxaa isugu yimid journalistayaal fanaaniin iyo muusikiistayaal maantadan xubnaha kooxdan waa ay qarsan yihiin lama sheego waxayna isugu jiraan fanaaniin muusikiistayaal ilaa ganacsato George Bush Senior iyo George Bush Junior Ronald Reagan Richard Nixon iyo Tony Blair dhammaantood waxay xubin ka ahaayeen kooxdan waxaa la rumaysan yahay kooxdan inay cibaado sixir ah ku sameyn jireen Hoolyar goor dambe ayaa filim sameeyay John Russell la dhaho ayaa filim ku xaqiijiyay si qarsoodi ah ayuu u duubay goobta ay ku cibaadeysanayeen oo u ekeed taalo gumeys ah oo ifeys oo aad u weyn markaas kadib ammaanka si xooggan ayaa loo adkeeyay goobta waxaa lagu hareereeyay ciidamo waardiyaal ah 6 La Circle waa koox American British ah oo aad u sir badan aqoon saas ah lagama haayo kooxdan waxay ka qayb gashaa basaasidda iyo siyaasadda waxayna ka doodaan siyaasadda iyo heshiisyada hubka siyaasiyiin badan oo caan ka ah UK sida Rory Stewart qayb ayuu ka ahay waxaa la aaminsan yahay inuu ahay basaas hore ee MI6 spy kooxdan waxay sanad walba ku kulmaan Washington DC waxaa la rumaysan yahay dakhliga kooxdan inuu ka yimaado CIA-da 5 Blackton Club naadigan wuxuu casho qarsoon u sameeyaa ardayda jaamacadda Oxford xubnaha kooxdan ku jira ee taajiriinta waxay caan ku yihiin xaflado iyo rabshadaha baararka iyo qolalka ardayda ka dhaca naadigan wuxuu la mid yahay kooxda Skull and Bones ee Mareykanka xubnaha naadigan waxaa ka mid ahay David Cameron Boris Johnson iyo George Osborne kuwaas oo noqday siyaasiyiin xoog leh 4 Bilderberg Group waa koox sanad walba kulma waxaana la aasaasay 1954 sanad walbana waxay qabtaan kulankan siyaasiyiin badan ayaa ka soo qayb gasha waxaana la socda dhaqaaleyahano hogaamiyaal military iyo madaxda shirkadaha iyo maamul goboleedyo kulamadan waxay ka dhacaan albaab xiran gadaashood wax warbaahin ahna kama soo qayb galaan ajantaha kulanka goorta laga doodayo lama yaqaan oo lama oga 3 Chatham House sidoo kale waxaa loo yaqaan Royal Institute of International Affairs xaruntiisu waxay ku taal London waxaa la aaminsan yahay kooxdan inay faalo ka bixiso oo ay ka doodaan dhacdooyinka dunida iyo caqabadaha caalamka ka taagan balse albaabada xiran gadaashooda waxa ka socda lama oga golahooda cidna looma ogola marka laga reebo xubnaha kooxda ka tirsan kooxdan waxaa maalgeliyay hay'adda Bill Gates iyo gabadhiisa Melinda Gates ee Bill Melinda Gates Foundation iyo hay'adda Rockefeller Foundation 2 CFR
CFR ama Council of Foreign Relations waa gobollo midoobay oo aan faa'iido doon ahayn non-profit wuxuuna qaas u yahay siyaasadda dibadda ee Mareykanka ee arrimaha caalamiga ah waa koox sirahooda ay qarsoon yihiin xilliga ay xogayaha ahayd Hillary Clinton waxay sheegtay in kooxdan awaamiir toos ah ay kaga imaanayeen waxaa kooxdan ka mid ahay madaxweynayaashii hore ee Mareykanka George Bush, Gerald Ford iyo Bill Clinton waxaana weheliyay shirkado badan lambar 1 amba lambarka ugu dambeeyo Trilateral Commission dawlad ma hoostago xisbina ma lahan waa koox wax falaqaysa waxaa aasaasay David Rockefeller 1973 dad badan waxay dhahan kooxdan waxay aad ula mid tahay kooxda Bilderberg waxayna sameeyaan go'aano siyaasadeed iyo go'aano ganacsi xubnaha kooxdan lama doorto waxaa xulanaya gudoomiyaasha ee guddiga shiraya qaar xubnaha la ogsoon yahay ee kooxdan waxaa ka mid ah Jimmy Carter, Bill Clinton iyo Barack Obama ajandaha dhabta ah ee ka dambeeya guddiyaasha kulmaya weli shaac lagama qaadin ilaa haddana lama yaqaano wax ay ka doodaan